إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد naftayda iyo tiina waxaan dardaarmayaa cabsida Allah subhanahu wa ta'ala midda xigta ee ku saabsan waxbarashada iyo dacwada Tawfiq Islamic Center ee ku yaala Oslo, Norway. waxyaalaha uu ka qabto waxbarashada ama dacwada baa iraahdee sida ogtiima Tawfiq madaaristiisu ilaa haatan aanu gacanta ku hayno waa 14 madraso oo caruurta yaryar ah kalaasida yararka ilaa 6 class ama 6 fasal oo dadka waaweyn ah dumarka ah khaasatan iyo hal fasal oo tahfiid qur'aan ah isugeentooda waxaan rajaynayaa inay yihiin 22 waxa inta dheer oo hoos yimaada madaaristan Tawfiq khaasatan masjidka ka baxa madaaris kale oo xaafadaha magaalada ku yaala oo dhaqaale ahaan iyo idaar ahaanba u hoos yimaada Tawfiq Islamic Center ama masaajidka Tawfiq xaafadahaasi waxaan ku qiyaasi karnaa ilaa 5 xaafadood sida Sagane, Stavanger, Björndal, Hovseter iyo Toyen. qaarkood inta badan ilaa 4 dhaqaale ahaan iyo waanu ka kabnaa iyo maamul ahaanba Toyenna xagga waxaan ka kabnaa moraalka iyo magaranaysa kobcinta dacwada. inta waxaa dheer waxaanu furay sanadkii hadda dhaweeyay ee tagay bishii October local aanu u sameynay dhalinyarada oo uga faa'iideysanaynay maadaama reer Oslo ay sii badanayaan maalin ka dambaysa ayaa loo furay localka isaga ah oo aan masaajidka ka fogeyn qiyaas ahaan 5 daqiiqo. meeshan ku faraxsanahay meeshan aad u fiican tahay dhalinyarta Soomaalida ka faa'iideysanayaan haddii doona wax ka baran karaan kana fiican meelaha kale gaalada leedahay la tagayo marka waxaan oran lahaa dhalinyarta Soomaali meesha ka faa'iideystaan. localkaasi waa local weyn dhalinyarada ungdomka la yiraahdo ama dhalinyarada da'da yarta ah waxaan uga sameeynay activiteedyo xilliga magaranaysa ay activiteedyada leeyihiin xillina waxa loogu qabtaa dawrooyin muhaadaraad magaranaysa classiyo quraanka lagu barto waxay u kala qaybsan yihiin 2 qaybood qaybta gabdhaha iyo qaybta wiilasha. waxaan aad waliba uga hadli lahaa qaybta gabdhaha oo aad moodo in nashaadkooda iyo dacwadooda uu aad u hersareeyo iyagu waxay dheeriyiin waxay sameeyeen wax la yiraahdo dacwad shaaric oo gabdhaha kale ee walaalaha Soomaaliyeed ama muslimaadka guud ahaan ayayba dacwada gaarsiiyaan oo localka ay ku leeyihiin ugu yaraan ilaa 2 maalmood oo iyagu khaas ay u leeyihiin. localka waxa ka baxo oo kale ilaa 6 class oo 3 ay galabti gasho 3 ay subaxi gasho. intaas oo dhan waxaan uga dan lahayn maadaama baahidii dacwadeed ama waxbarasho ay ku koobnayd marka hore Tawfiq masjidka ayaanu waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo makaniyay inaanu ku daro magaranaysa localka inta leeg oo masjidku uu ku qiyaasay uga baxdo lacag dhan ilaa 30,000 oo kron bishi. Allah subhanahu wa ta'ala dacwadiisa isaga ayaa garanaya cida uu magaranaysa ku barbaarinayo laakiin reer Tawfiq waxay aad ugu dadaaleen in dhalinyarada soo badanaysa ay u helaan goob ay kaga faa'iideystaan waqtigooda. waxa inta dheer oo ka baxda markaan ka baxo madaarista qaacada masaajidka kutub fara badan oo uu akhriyo sheekhuna Sheekh Dr. Ali uu akhriyo oo ilaa hadda 2 sano ee aanu maamulka haynina ay dhamaadeen in ka badan 10 kutub oo waaweyn haddana ay socdaan in ilaa 3 kutub oo waaweyn sida alfiyat siyuuti siiradii nabiga iyo محرر الحديث صدق هذا كتابنا أي هذا الآن السعودان وحصل على كله تفسير كقرآن الكريم كا وسوج يديه
maalmaha sabtida iyo hadda Sheekh Maxamed Bacor uu soo jeediyo waxa kale oo iyadana baxda kitaab isaguna la yiraahdo kabaa'ir oo uu bixiyo Sheekh Abdul Qaadir guud ahaan dacwada ama nashaadaadka Tawfiiq Islamic Center aad iyo aad ay ugu heersareeyaan aadna way magaranaysaa u kobceen waxa intaas dheer dacwada loo baxo tuulooyinka iyo magaalooyinka kale oo ay khayraalaha siiyay culimada oo dhan ay ka wada qayb qaataan Sheekh Axmed Sheekh Bacor Sheekh Xuseen Sheekh Abdul Qaadir dhamaantood ay ka wada qayb qaataan waxa intaas aan ku soo gabagabeyn lahaa qaybtii waxbarashada waxa halkan iigu xiga oo iyadana aan soo koobay insha Allah mu'tamaraadka uu qabto Tawfiiq Islamic Center sanad walba xilliga booskaha la yiraahdo ama Easterka waa dacwo muhiim u ah dadweynaha muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ku nool dalka Norway gaar ahaan reer Oslo iyo reer Tawfiiq marka inta kulli inta ka soo qayb gashay cadadii waxa lagu qiyaasaa mu'tamaraadkaas ilaa 3,000 qof laga yimaado dhammaan Scandinavian-ka iyo Europe-ta culimada noo timaadana ay aad fara badan yihiin marka mu'tamaraadkuna hawshooda aad bay u ballaaran yihiin waana dacwo ay ka wada faa'iideystaan dadka muslimka ah iyo guud ahaan Soomaalida waxa sanadkan fursad ah in aanu helay culimo dacwada ku bixisa luqado kala duwan sida Ingiriiska oo aan uga faa'iideyno dadka guud ahaan muslimiinta ay fahmaynin Soomaaliga marka inta ayaan ku soo koobaya kulli halkan lagu soo koobi karo baahida ama dacwadeed ama waxbarashada oo Tawfiiq qabto marka insha Allah waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baryeena in uu sida hadda ay nagu socoto si ka fiican uu noo kan siiyo waxaan kaloo Allah subhanahu wa ta'ala ka baryeena masaajidkan hadda aynu asaasayno dhismihiisu hadda isbuuci la soo dhaafay contractiga la saxiixay qoladii dhisaysay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu si fiican noogu dhameystiro waxa lagu qabanayaana waa masaajidkii Allah ee dacwadiisa lagu waday iyo salaadiisa iyo cibaadadiisa waxaan ku codsan lahayn dhammaan dadweynaha reer Oslo ama reer Norway ama ma garanaysaa Europe ama America ama Africa meel kasta ay joogaanba in ay masaajidkaasi naga caawiyaan iyadoo la ogsoon yahay in markaska Tawfiiq Islamic Center uu yahay meeshii ama hooyadii laga wada dhisay masaajidda hadda ay dad badan ku cibaadaystaan Europe iyo Mareykan iyo meelo badan oo caalamka ku yaala anaguna waxaan idinka rajaynaynaa sida aanu idinku garab gali jirnay tii hore inaad maanta idinagana taanada ama boodidaanada qaawan aad noo asuri lahaydeen wajazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إلا الله لا إله إلا الله